بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال muuqaalkan waxaan kusoo qaadan doonaa daarta fac weyn ee Taj Mahal. Taj Mahal waxay ka mid tahay dhismooyinka ugu fac weyn misna la oran karo inay tahay dhismaha ugu weyn ee dunida marka loo fiiriyo xagga taariikhda. Taj Mahal waxay ku taalaa meel u dhow webiga Jumna ee dhaca caasimadda Hindiya, waxaana dhisay boqor la oran jiray Shah Jahan kaasoo ahaa Emperor Indian. sanadka markuu ahaa 1682 ilaa 1658 boqorka magaciisa saddexan waa Shahabuddin Muhammad Khurram, wuxuuna dhashay 5 Janaayo 1529. sanadka markuu ahaa 1666 ayuu geeriyooday, da'diisu waa 74 sano jir, wuxuuna ku dhintay magaalada Agra ee waddanka Hindiya. boqorka hooyadii waxaa lagu magacaabi jiray Hooyjakad, wuxuuna adduunyada ugu tagay boqorka 4 wiil. xaaska boqorka ayaa la dhihi jiray Mumtaz Mahal, taas oo ku dhimatay dhalmada. heerka dhisay Taj Mahal ayaa la khaarijiyay cabsi darteed. boqorka waxa uu diidanaa inuu dib u dhiso injineerka qasrigaas qasri la mid ah. sababta keentay in Taj Mahal la dhiso ayaa ah boqorka xaaskiisa oo uu aad u jeclaa ayaa ka geeriyootay. kadib boqorka wuxuu wacd ku maray inuu u dhiso daartaas oo jiri doonto ilaa iyo maalinta aakhiro. daartaas oo loogu magac daray boqorka xaaskiis aabaheed oo la oran jiray Mahal. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.